وين السلام أصحابتي سيتين طبعا dadka badankood weydiiyo safxadda Twitter waa kana waa ku cusbay meesha kii marka akhbaarta rabaa inaan ka dabageeyo kii halkan Falastiin Suuriga ahaa uu soo jawaabay aniga dabcan halkan aan ku soo qoray Twitter baa waxaan ku soo qoray يعني dad buu qaabilay oo يعني halkaas waxa ka timid xadgudub in Soomaali la yiraahdo cantara dadkana waa dad la soo dhaweystay waagii Turkida marka channelkana ka dambeeyay links oo suulu leedahay kan marka waa kii saxafiga ahaa I don't know accountadiisa soo helay because accountay meelaha kuma jirto waa kana okay waa ka Soomaalida isku sawiraya meelaha ugu xun loo sawiraya yani cute wala iska dhigaya halkan marka aniga ii soo jawaabay dabcan ma arkin wuxuu yiri maya channelka suuri male cantarana adoonnimo lagama wado bas waxa weey qofku inuu ku faano inuu madow yahay dhuxul yahay asaga sida cantara asagana yiri ninka dhalay oo u baxsaday oo isagu wax aan shuqul kuma lihi filimkana wuxuu yiri asalka DNA-da Soomaali shuqul kuma leh laakiin waxaan ka hadlaynay dadka soo qaxay Suurida ah carabtan waxa soo qaanay because carab hora inay soo qaxday أنا طبعا مركان أركي جاوا وجوابي حالي طبعا هل أنا قرأ وحا إري سنتي ملبكة سكولا قيسا سوماليدو وقبائل الجراني ونصب كودنا واضح ويا ما نقبهن إن ضد أنجا خاص كان لجا كوس ما أقولين أضو ود كانوا حاطين سوري الريبورتاج هناك سميسيد ولكن كس يوم ما بعد مر والبا والجو برتاي because من كان وحنسوق يعني شنشر لحجر كبضن الصومالي يمد sanadyo hore oo this is not the first time yani wadankeenu yimaado marka waxa uu kas mar walba u baratay meelaha ugu xun inaad sawirtid si xun inuu soo saartid haddana waxaad ku darsatay taariikhdeeniba inaad rabtid inaad tirtirtid qadiyadaada shacabkii oo dhan social media Soomaalidu la socda fiidiyoogana ka saar meesha apologize-na dhiib wa ilaa markale laguma ogolaanayo inaad wadankeena xaga soo saartid طبعا fiidiyooyin oo about Soomaaliya ah baan soo geliyay oo ah يعني كان مثلا أربوركي كان وقرينا مقدشو كان يعني قريه قدام بي مقدشو يعني دورون شيء يوي ما هم يلاها تشبك وهذا هل كان اسكو صوره يا موجيدا يعني ميلا قرب شو تجي هل كان لايك ذيس كس يا ما قرأتي صحافة وي وحان طيب هادونا طبعا dad Soomaaliya ila soo xiriiray waxay yiraahdeen ninkan Turkigu jooga waa la dacweyn karaa حتى waxaan soo ogaanay bari horuba nagu socday from 2017 18 20 طبعا كانوا كان مثال يربع نسينيا هل كانوا واكو soo qoray 2018 kii September buu wuxuu qof buu jawaabayay markuu wuxuu qorayaa وكأنك في بلاد صومالية بلا قانون وأجهزة الأمن ويريدون انضمام الاتحاد الأوروبي يعني وحكومة تليا ميل حنوية وحو ليهاي ما صوماليا كلابا قانون كمتشرو أمن ماله وحي دونيا إني أوروكا يوروب قلان طبعا سيقول تركي وهالكا كو عمبارين يا بركو قف بهالكا جوابي وحو كل ليهاي أخي الصومال ليس بهذا السوء الصومال ساء محمى طبعا ضد كان ما شاء الله أكتف ككوا تويتر بأدومنا ونصو دري هل كان حتى في ريتويت وحكو صوماليا أي قف مثلا أرقق حساء أما أي قف وحقشنا أبات صوماليا الشيغا نين كان بيرهرو وشقيسين تري إنو كسمية طبعا تن و 60 يول وهدا 24 وسنة كان وحو قف وحكو سو قري اليوم صار فينا نعتبر الصومال ضاع أيها الأخوة لا حول ولا بالله يعني هل كان ريبورتاج يعني شفق العربية وشانل تركيا ولكن عرب كوها الله وحو قري تركيا وحي يعني توبرتي ضد بدن وأسكر وملتريق الصومالية ضدكي توبرتي مركا ضدكي ugu horeeyay katiibada ugu horeysay marka shaqadooda bilaabeysa Turkiga marka hanbalaynaysa ninba marka halkan wuxuu ku soo qoray Soomaaliya oo dhamaatay way dhuntay wal xalqo tala bila retweet marka ku sameeyay magaciisa kor mujeedaan okay Soomaaliya nacayb okay halkan xataa dad ba hadda ka hor la dooday wiilkan Mustafa la yiraahdaa sheekadan waxay dhacday adiga 2000 I think 2019 something like this ama 13 ba malaynaya si fiican loo mijeedo markuu wuxuu ku leeyahay war reportaajyadu dhan reportka ka sameysay Soomaaliya waxaad soo saartaa xaaladda negative-ka ah laakiin anagu markay reer galbeedka noo yimaadaan waxa positive-ka iyo rajada fiican bay Soomaaliya ka soo sameysaa
ma siyaasadda channelka alcarabiya u shaqaysid miyaa mise waa wax sulfo ah asagaa marka wuxuu u jawaabayaa berigaas wey wasocdiga ka hor okay wuxuu leeyahay dadka muhiimka waxa waa akhbaarta ama ha xumaato ama ha fiicnaato wiilkiiba weli usii jawaabaya wuxuu ku leeyahay akhbaarta dadka loo sheegayo ogow يعني caqligooda iyo fikirkooda wax weyn bay ka bedelaysaa asagana wuxuu ku leeyahay may akhbaarta waxa laga sheego culture ma aha akhbaartu waa muraayada la akthar yani adkeysa way wadankaaga saasan fahamti okay marka halkan aniga waxaan soo qoray safxadayda ninka saxafiga munaafiqa oo Cisaam la yiraahdo ajendada khaas u leeyahay oo ah inuu sawirka Soomaaliya ka tujibiyo positive-ka ah adduun weynaha ama shacabka carabta daawanayo ku xiran channeladu ka shaqeeyo كذلك waxaan waxyaalahan aragnay waxa weeye inuu retweet u sameeyo ama repost u dib yani u post gareeyo ama u diro ama faafiyo hadalla ama postooyin hadda la soo dhigay oo Soomaaliya aad muxuu ahaa u xumaysa ama suuradiisa xumaysa lidalik dad active Soomaaliya waxay go'aansadeen inay dacwo ku oogaan ninkan Turkigu hadda joogaa دليل بدنا والله هيا هقول نقضاء عظة وعبرة يعني تصالح هقول نقضاء ضد كنيجاتيف كا وحائري للأسف وأنا الرن لأنه نين كان وفلسطين السورية كل شيء فلسطين تمركا بلا وطن بأقرن أصلا ودن كيس إنه كهل إهد مركم واحد أقرن أضبوا عالميا وحكو قرن مواطن متيد بلا وطن بأكو قرن و this is reality وحنا عيني سا ضد كشعوب تقدمك أقو قديم سنة نقول كله يمد marka wax ka sheegaysan ku laado balaa wadana so taasna xataa saaxiib way jirtaa la socda hawsha haday xataa la soo ogaado inuu xataa uu Turkiga waxyaalo waaweyn oo dawladda xataa u gafay sheekadiisu way dhamaatay ninkan halkaas lagu xirayaa intaas rabay marka inay in sheego waa mahadsantihiin dadkoo dhan oo ma sha Allah about yani alaabtan dhan geystay oo active ka ahaa oo فيديوينك مثلا جايي هاشتاجيديسا iyo arrimahaas oo dhan taban halkan xalay waxaan soo galiyay maalin dhaweyd waxa dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayay dadka mas'uulka ah hatta future-ka qaban doona inay ay qof saxafiya ama jihooyinka iclaamka ah warfaafinta oo information khalad hadda ka hor naga sheegay sumcadeena raba inay dilaan ina markale loo ogolaan inay wadanka yimaadaan liisadoodana waa la hayaa inta jeer yimaadeen iyo waxay faafiyeen dad active ana waxa soo sameeyay marka dhalinyaro cusub Soomaaliya u soo baxday waxa fiican ina kasbataan dadka waxa laga hadlayaa ajnabiga ama kuwa noo imaanay wadankeena marka waxa kuri haddaad TV tihiin ama dawladda tihiin kasbada dadka dhalinyarada Soomaalida cadaawad kale u beerin lana adduunkii uu isbedel intaas oo dhan marka jira marka hawsha la socda